jiray ilaahay kuma sabadiiday ninkii baar samee muxuu ahaa raawi ilaahay kuma sabadiiday ninkii loo soo diray gobolka inuu burburiyaana waxa gudoomiyihii wadani soo saaray oo ilaa hadda mushaarka qaata waan warqadiisa qolkayga xitaa habeen hore iyo habeen saddexaad kaga hadlayay ninka la Cabdisaaq Khaliif oo xisbiga wadani ka tirsan ayaa waxa la soo siiyay 5 milyan oo la yiri halka dagaalka ka rid ko annana buurtaan fuulayna labo meesh khiyaamadu ka dhacdaan iskaga dhacnay baan ku sheegaya ko buurtii bay ka soo digay oo buurta inay ka soo digaan ma narabin haddaan dhurbaantanahay iyo garxijis waxaan ku heshiinay walaalayaal buurta ka soo degnaa annana burcaan soo gaarayna gobolka Sanaagna degmadaad ku leediin ciidu kuma isticmaal weyn halka baash markay marisay degmadan gobolka booliska jooga cilaf weyn baan geynaynaa sida loo geeyo caynaba ciidanka baan geynaynaa halkii naana khaatumadeeda ka dhiman ku darsada filimka waxa isku soo afjaray labada system aan isku diidno waxa kamid ah horta ninkii markuu yimi jaamac siyaada ila Khaliif Cabdisaaq Khaliif ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waadigii ogaanu walba uu ogaayo xilkii xitaa la tabay laga qaado cidii uu codeysay iyo gudoomiyaha hadda uu ku sheegay wixii wata ciro baan ku daray oo xilka laga ma qaadi karo isagoo la saacad xiran oo calankii khaatimo xiran bulay xilka laga ma qaadi karo waa nin gudoomiye ah oo Soomaaliland tara hadda waa ninkii qori wata ko halka baash markii saqleynaysay waxa la yiri marka gudoonka baarlamaanka telefoon inta loo diray oo lacag fiican loo diray la yiri gudoomiyaha baarlamaanka oo iska casilidhi xarunta shahaadada inta soo istaago wuxuu yiri xilkii gudoomiyaha Soomaaliland waa ka tigi xildhibaannimadii laakiin wali wuu hayay mushaarka ku qataa wadani baana loogu dhiibay inta marka laga yimaado ninka la ina Abiib sidii oo kale Djibouti waa tuu tagay waa tuu qadar tagay waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada Soomaaliland laakiin ka soo baxay baarlamaanka waxa la dhinaca gobolka Awdal buu ka soo baxay gobolka Awdal iska daa wuxuu ka tirsan yahay ciro xisbiga wadani buu ka soo baxay xisbiga wadani buu wuxuu ka soo baxay gobolka Awdal ka soo wuxuu dabcay inuu Awdal aado xukuumaddu way fahamtay sida Cabdisaaq Khaliif inaanu tagin oo kooraa wax lagu fahmay waa la qabtay weydii koogaa Djibouti uu tagay Soomaaliland sayaan markii ugu dambeysay wuxuu joogay meesha la qadar oo kula kulmay madaxweynaha khaatimo ninka la yiraahdo Firdhiye oo isla qadar jooga oo arrimihi shidaalka uu jooga waan halka sawirkiisa ku soo saari doono iyo waxa ka wada hadleen halka markay baashaas saqleynaysay wadani meesha isku jirnaa ku sheegay wadani waxaan isku jirnay iyo dhammaan dhalinyarada barnaamijyada isticmaashay garxijis uu ka mid yahay ninka la yiraahdo Baabulaay uu ka mid yahay Mawlid oo aniga habeen walba qolkayga ugu yimaadaan ku wada hadalno waxaan isku jirnay barnaamijkii gobolka Sanaag odayaasha garxijis markay dagaalku socdeen gujudood wata cirkaaba agteeda ku shireen waxay dheen ciidanka qaranka ha kala soo baxeen la sacaano makhraatibad ka wadati heshiisyadan kale mid ka ahay ninkii nagaga dhitaana waa nin aan beesha garxijis ka mid ahayn halka markay saqleynaysay nimankii buurtu waa ka soo degeen wixii kale dhan waan isla fulni buurti markay ka soo degeen waxaan ku heshiiday war buurti doorasha siisatay Soomaha ciidanka gobolka Sanaag degmada Cilaf weyn keena meeshaan isku diidan ku sheegay degmada Cilaf weyn ciidanka keeno hadlo sidii shalay aad u hadli jirteen ciidanka qaranka shalay weydii kala Allah taxanad ka soo baxay hadlo waxaad ku tiraahdaa degmada Cilaf weyn keen maadaama ay guriyo ku leeyihiin degmada gobolka Sanaag habar Yunis way u cuntami weydii halkaas aan isku diidnay waxay dheen ka biximaynay ciidanka qaranka waa ku dagaalamo waa marka uu leeyahay waa ku daaraya hada Baabulaay Axmed Karaashow nabad ma haysa ma dhageysato horta Baabulaay wallahi waan dhageystay ninka la yaabjaydo wallahi waan dhageystay Karaashow nabad ma haysa waa aniga qolkayga isugu nimay habeenka uni aduunka wataa joy taabsi barnaamijka shan habeen baan hadda ka hadlayay nimanka garxijis anagu waan wada shaqeynay walaalaan ahayn Yuusuf Harti bay xoqdeen oo adigu Yusra Harti tiraahdeen oo uu kamid ahaa generaalka weynaa ee Caare markuu qardha joogay waan ku daaray isagoo leh Yuusuf Harti baan noo walaalayna marka anaga garxijis waxaan isku haynaa gobolka Sanaag isku hayno wadaninimada iyo systemka qaranka u burburinay waayahay aan ka dhex galo garaad maya aan ka dhex galo imika liibaan wuxuu doodan caawa anigu aan qabtay adan Cabdimalow halkan aan ku qabtay waxaan u qabtay in de hadalladan aanu dib u raacno maadaama qaranka lagu soo duulay adiguna dhulbaantaaba tahay garaadka tahay sida runtii waad u dhaxaysaa aynu ishayno laakiin de hadlaaba heshii inaad go'deen oo de aad khaatumo tahay kuguma haysto qolkayga inaad timaado aan kugu soo martay qaado
dee adigu baad igu soo marti qaadaa ma wuxuu yidhi harti waxaanu isku haynaa haddii hargeysi dunto oo hargeysi dunto laascaan ceerigaabo dawlad baa ka dhalanaysa oo markaa labada gobol iyo barhka ayaa dhammaystirmaya taa markaa ma dawlad wadaaga inaad dhistaan maxaad ku heshiiseen qorshihiinu muxuu ahaa cabdisaaq khaliif sheegtay maxaa qorshihiinu ahaaye idinku markaa aad buurta kow inaan laga soo degin waa ka soo degay garxis wuu ka baxay talabaad sheeg talabaad ee aan isku diidnay ee inagu diidan waxa weeye in degmada gobolka Sanaag ciidanka qaranka inta laga soo saaray degmada Ceelaf Weyn degmo ahaan u leeyihiin waa shuruudii labaad oo Ceelaf Weyn la keeno waa laba Ceelaf Weyn ha waa laba meeshaan isku diidnay halka markaan isku diidnay iyaga marka kaar waxay xoqdeen Somaliland ee gool dad walaalaha oo heshiis ku siyaasaddan wayn kaar isaaqay xoqdeen marka qabiila marka arkan in gobolka Sanaag dee aan ciidankayga dul dhigay kaar waxay xoqdeen kii hore ka duwan kii garaadku muud buu galay waa la soo wacay garaadku muud buu galay aad baan horta u salaamayaa doodaas baynu ku soconaynaa waayahay kusii jannay kusii soco haddaad doonto ku soco jannay oo garaadka uga bax marku soo galo ku soco waa soo bax ku soco garaad ku soco inaad waxaan marka anagu isku maandhaafnay munaafaqadu ma fiicna nimanka walaalaan ahayn siyaasadana walaalo ku lahayn xitaa xilliga habarta aad ka sheekeysay watan hubka iyo siinay nisaanada ay lahaayeen abaalkiini hore aan idin ku daynaa lagi garxis ma rabana lama kala waayo laakiin siyaasadii bari nimanka faansanayno labadii kaar aan isu xoqonaynay iyaga kaarkii ka baxay waayahay ninkan liibaan alcadaala ninkan liibaan la yiraahdaa muxuu markaa qaabilsanaa isagu ilaa ragga shaqaynayay buu ahaa annagu dhammaan waxaan u haysanaa aanu islayno dhulbahantee ama dee nimankii halkaa ciidankii halkaa kusoo duulay in gudaha iyaga ay wax ka xumaadeen waanu dareensannahay annagu lamber kow marka dooda aynu u galay khudbadiisa uu galay habeen hore uu galay in ciidamo la sameeyo in hargeysa la sameeyo waxaanu ku darayaa doodiisa dad kale ayaa inala shaqaynaya iminka yaa la shaqaynaya baad u malaynaysaa idinka waxma idinkala shaqaynayaan khaatumo cidma la shaqaynaysaa baad u malaynaysaa waxa la inaadan hadda waanu kala furano waxaanu ku kala furanay systemka gobolka Sanaag bar isku hayna gobolka Sanaag heshiisku wuxuu ahaa inay khaatimo gaadho degmada gobolka Ceelaf Weyn ay noqoto sida caynaba calanka Soomaaliland suran tahay maadaama ay magaalada waxa weeye guriyo iyagu kuleeyay guriyo way digay laakiin adduunka ma jorati ma noorati maadaama ay ma jorati ka ahayn war shaashada garaaca ku ruuxiya 2500 baad ku saarantiina garaaca shaashadan iyo war shar gareeyana qolka shar gareeyana ha qolada gobolka Sanaag inay ka mid noqdaan maamulka khaatimo iyo degmada Ceelaf Weyn marka tii odayaashii media ma soo fadhiisay laakiin way kala go'jideen waa talahayn hal difaaco okay marka waxaad isweydiinaysaa nimankan ceergaba hal difaaco بلين السياسات بلدها وأنا ما كشلي لا صعنا ذا لقصب عير قبل إلى ينهل الدفاع دق ما كله لا صعنا ذا أنا لقصب حنا دق ما لقولها بالوضع أرين إسقبتي عضو ما كلي إسقبتي ورشاشة قراءة كيف عاون ومرتيا شاشة قراءة شاشة ورشاشة إنه قراءة إنه شركرية نادر نمكر وسوبرلاندر أنا قلت قلت سوبرلاندر وادوكي xukuumadda waa kamid ah guddoonka baarlamaanka fadhiya waayahay garaad halkaa ku waabi walaalahay anigu wadan waxaan leeyahay dee Somalilandana waynu wadanahay khaatimadana waynu wada dhisanahay dee inaad wixii inaan iskaga bixi anigu waxaan diidaa khaladka anigu waxaan aaminsanahay khaatimada inay Somaliland tahay oo dee laan ka gooday tahay Somaliland hadayna khaatima tahay because maadaama loodayada dhinac isla shaqaynayeen gobolada bariga hadda isla shaqaynayni inaad in baashi la iskaga baxo ma ahe reer wadan waxa leeyahay war inaad baashi sideedii hore inoogu daayay gobolkii Sanaagna aanu gaadhno codkana aanu disiino heshiiskan waxa xitaa kurtiga hadaan weyno inaan haddaan reer khaatibana hubiyo ciidan basino ku dagaalano waa hargeysa la qabano waayahay wajahada la sameeyno waayahay garaad waaye su'aal baan ku weydiinayaa maalintii dhaweyd firdhiye xusbiga wadani waxa uu leeyahay yaan lagu dagaalamin ceerigaabo yaan lagu dagaalamin waa layna waalayaa waxa la sheegayaa in firdhiye laftiisu dagaalka ceerigaabo
dib loo dhigay oo isaga laftiisu ka dhur sugayo in xusbiga wadani dalka qabsado maxaa xusbiga wadani hadduu dalka qabsado maxaa uu dhulbaantay ugu jira inaad qof dhulbaanta oo wadani taageersanay ma jiro oo soo qaban karta hadda dhulbaanta kale annagu wadani hal mid baan ku taageersanay haddana beesha dhulbaantana ama beelaha hartiba ee waqooyi haddaan nahay macruursan geli nin taageersanay ma jiro heshiis baan isku taageersanay heshiisku wuxuu ahaa in gobolka sool iyo gobolka sanaag uu maamulka khaatimo wada gaadho nimanka walaalaha ayana waxay u baahan yihiin ee kale ee sanad iyo ciidana iyo coda iyo dhaqaale inaan u hiilino nimanka waxaan isku burugsanay marka nin magaaladiisa la maamulku iyo gaadhin heshiis lama dhex mari karo heshiiska ugu fiicnaa war kursiga ma rabtaan haa kursiga waxaan ku xidhay gobolka sanaag in maamulka khaatimo ka shaqeeyo tiina waan isla ogolaanay tiibaanu marka ay nagaga baxeen haddii beesha garxijis ama xisbiga wadani marka halkaasaanu nimanka siyaasaddaasaan isku haynaa qof hartiya oo wadani taageersan wallaahi ma jiro haddaad aragtid mujaahidow waxa weeye inaan siyaasi baan tiktokna waa ka baxayaaba qof kastoo dhulbaanta waan ku aaminaya adiga waan ku aaminaya aban war sooba ayaa ku xiga waa bal soo qabso janayma baan garaadka weydiinaya saddexdaan nin ee tartamaya idinka haddaad tiin reer khaatumo keebaa idin dantu idin ku jirtaa waa ku soo inoogu jirtaa kulmiye wadani waa munaafiqin adeer wadani waa faysal ka waran سمعت باتي فيصل أنو حتى هرتنا ما أنا إنه شرح يا كلام ما أنا قف هرتي فيصل ما يقابل أنا فيصل وحنا قلنا نسياسته كلها حبايو ورشاشة قراعة هوي صدق كوني ديرات بد أيات تين قراعة شاشة نيو شاشة قراعة قراعة وي هاي شنو يكادي سوق له نيكا سرع عاد سوق له نيكا سرع سوق هذا هو السلام يا دباتي بين توسجود ونيو أنا بمن سؤال بقول لا حل دم مرة مرة وتكون صو عادين وياه ما نقول أحد هوري طاطا ما دود أنا كان عبد الملك هتانا أنا كان مركها وحى عن كوكان ليبان كنت بدي كسع لا مركها قرأت وحن ودي لها نما كان إمك وكهل يوري أصحابنا هاي نوع سياسة وحبار كويش لو وحنقولي أنا قلنا وحبار الدوري اللي يقولوا وحبي الدوري iyagu markaa waxay doonayeen maxay ahayd ila kursigan ay ku socdeen Soomaaliland magaalooyinkiiba hadii bixiyaan ama yiraahdaan idinkuna iska taga maxaa leedahay anagu xagga kala qabanaya ma kursiga fuulaan maxay xukumi lahaayeen markaa markay yiraahdaan Soomaaliya sanaag awdal iyo burciyo iyo hargeysa inta hoostagta xukumi lahaayeen markaa rasaasad leedahay way ku qanacsanayeen waxay lahayd idinkuna intan xukuma anagu intan xukumayna كيف صاصوها لكن لما كان هبرت على مكان بورتي كسر تجيب بحساب خلي يسكت في صدمة يتنو أنا وار أدبر دي سلامة يا أدبر دي سلامة يا وأنا كان حسين وبالصباح هذا أبوان بيا وقرية سواء بالمود كصباح نيكا كنا كسرية مود كصباح بال مود كصباح بال أويس نيو أويس كنا وبلا أويس كصباح أويس بلا أويس كصباح تي أويس وسوى بحواري بلوان سواق بنا يا هلا سواق بصدق شاشة هلا قراعة هلا جارسيا نيو صوتك يكون هلا جارسيا شاشة برنامج كنا إن طبعا سواق بنا يا سواق بصدق لما أنتي سواق بصدق soo qabsayna adeer aad baan ku salaamayaa soo dhaw aad baan ku salaamayaa soo dhawow qabso bal hadalka soo dhaw assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam soo dhaw dooda wala socotay soo maaha maxaa hadalka garaadka kelmadii garaadka yiri way iga qoslisay boogti waaye bal ku soco garaadka hadalkiisa heer garaadka ku salaama ما جراتك واحد حققال والله جراتك واحد حققال ويا جراتك وأنا أنت كلا يسقوا public فكر ويا يسقوا معها وانترناشنال يسقوا مركا وين كيسو مع سناد بو بكوسع حاك هاجا بحي هذا الرديسة والله هرت إلهي بس يحجران وقد دتك علم قيمنا من هنا نجو أو ما قيمين كرنا لكن كل ما لا حواك تشرين أقرأت
warkuu cadiyay laakiin muhiimad waxa weeye wixii aanu ku heshiinay daldaloola badan markii kursiga bila waxa sawirka sawirkaynu aragnay ayaa hadalkaas way iskeenayaan wixii meesha ka dhacay sawirkaas hadalkaas waayahay waayahay muudi yar gala ninkii way adiga aan su'aal kugu soo celiyo waayeenaade su-aashaasi waxaa noqonaysaa imika liibaan baad soo hadal qaaday waan arkay xalay miya heetan saabeen hore isagoo saa wuxu dudubinaya hahay dadku anigu liibaan waxaan u aqaanaa waxaan ogaa xilligii ma xasuustaa doorashadii hore hahay doorashada markii laga bilaabo calanka buluugga buu soo jiray isaga iyo mawlid iyo waxay farmaajo doolan jiray haye haddana waxaa arkay nimankii soo diga rabto xaggan yimi baan arkay wadani xalay aniga hadalkiisa waxaa iga baxay in reer ahaan lagu dhuumanayo wadani laakiin xitaa somaliland iyo nidaamkeeda aan la aaminsanay farqalalon ama dhib doonayaan sabab waan sababaynay bal su-aasha ilaahay hadday doonayeen kursiga oo cabdiraxmaan taageeraya cabdiraxmaan baa sharxan madaxdii madaxtinimada u sharaxnay way waxaan ku idhaa shaadii baa la siiyey way hadleen si niyadsamay bay hadleen guddidii commissionka way hambaliyeeyeen waan ku qanacsanaa bay yidhaahdeen kalsooni weyn baan ku qabnaa shaqaday wadaan dadkuna waa in si nabadgelyo ah oo degan oo bilaa caadifada ku codeeya qof waliba meeshuu doonayo codeeya waa maxay shakiga iyo mashaakilka markaa la abuuraya haddii qofku aad jiddo kale lahayn oo cid kale wax ku wada dee inaar waa taandoodaba u qabtay caawa taandooda u qabtay waa intaaba maadaama eeg madaxweynihii wuu ogolaaday commissionkii wuu ogolaaday wuu soo dhammaaday xalay buu bilaabay maanta waxa soo qaatay shahaadooyinkii musharaxii eeg shalayto waa markii la yeedhiyey siday u kala horeeyaan systemka ay u kala horeeyaan oo dee waa la soo dhameeyeyba waa kii Faysal Cali Waraabe dee amaanayay u ducaynayay shalay Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay niyow barnaamij kale ayaa la abuurayaa oo markaa sidaa aad sheegtay aniguna aan sheegay dagaalkii gooja cadde ka dhacay qayb buu ka ahaa hadday tahay askar la kala furfurayo waayo wuxuu ku sugnaa laascaanood gudaheedu ku sugnaa markaa waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka anigu halkan waxaan u marinayaa in sirdoon ku shaqeeyo dhalinyarada ku dhex jirta dalka gudihiisa waa in la qabqabtaa in allaale iyo in sirdoonka waa in facebooka whatsappka tiktoka dhammaan waa inay gudaha soo galaan markaa waa in dadka la qabqabtaa nimanka garxajise afka lagu dhufo mujaahidu xisbiga laftiisu inuu si safeeyo maanay halkaas ku qurux badnayn dee anigu habeenkii dhow soonigii dooda idin qabtay idinku yidhi Cabdiraxmaan Ciro ha hadlo haddaanu ka mid ahayn kooxda duminaysa Somaliland waa inuu iska bari yeelaa liibaan baabulaahi jaamac shabeel ragga la midkaa cid walba way leeyihiin waa inuu yidhaahdaa aniga afkayga kuma hadli karaan af xusbi kuma hadli karaan ima soo qaadi karaan huwan bay u shaqeeyaan waa inuu horta huwanta caddeeya Cabdiraxmaan Ciro marka hore waa inuu caddeeyaa markaas waynu raacaynaa laakiin intuu aamusan yahay liibaan halkan u kala dirayo islaamahana lacagta leeyahay soo ururiya dee waa lagu dambaabaya dembi badan baa soconaya markaa dooda hore inuu u qabanay xogayihiisoo ka hadlayay baan maqlayay kole hadalladeena qaadaya markaa qolka aad baan idin salaamaya 50,000 bay shaashadu maraysaa kor ha loo qaado 100,000 ha la xidho balcaawa kor u qaada shaashada samadaa geeya hore u socda aad baan kuu salaamaya soo dhow